howlgalka horta sida ogtiin maalmahan buu socday maaha wax hadda bilowday laakiin hadda maalmihii ugu dambeeyay 15 bishii laga soo bilaabo waxaan bilownaa howlgalla anigu sifeynayna dhulkan xeebaha nimankan nabadiidka ah oo ummadda ku haya jidgooyada u taagan oo ummadii dhibaatada ku haya marka inta badan hadda waa ka xurayna dhulka aan doonaynay laga soo bilaabo jasiira ceelow maki meesha la dhaho halamboy meesha la dhaho dhanaane meesha la dhaho gendershe ilaa iyo meesha la dhaho muxuu ahaa ii sheegay jilib markana dee waqtiin horay ugu sugnaayeen ciidamada dowladda marka dhulkaasoo dhan waa laga xureeyay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha dhimanka meelaha yaryarka ay ku dhuumaalaysanayaan waa uga daba tegi doonaa waana ka saari doonaa kaliya howlgallada inta maahan sida aad la socotaan guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay wadaan qorshayaal nimanka nabadiidka looga saarayo dalka sababtoo ay tahay isku laba noolaa karna anaga iyo ayagu marka sida aad la socotaba howlgallo waxay ka socdaan gedo waxay ka socdaan baar dheere waxay ka socdaan muxuu ahaa sheegay hiiraan waxay ka socdaan muxuu ahaa sheegay qaybta 6aad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kan hadii waa howlgalkii asigana maalmahan ugu dambeeyay aan ku jirnay sida aad wada ogtihiin awood uma lahan inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya hor istaagaan nimankan laakiin waa meelay ku dhuumaalaysanayaan insha Allah waan uga daba tegi doonaa meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan maalmaha soo socday saacadaha soo socda howlgalka sida aad ogtaan wuxuu soo bilowday 15 bishii bilowday wuu socday ilaa inta wuu socday meelo yaryar oo ay ku dhuumaalaysanayaan oo looga daba tegay oo iska hormaadeen yaryar ay ka dhaceen way jirtaa laakiin awood ay nagu hor istaagaan ama ciidamada ay ku hor istaagaan ma lahan sida aad ogtihiin nimankan markay doonayaan inay dhibaateeyaan ummadda way soo araruriyaan laakiin awood ay ku hor istaagi karaan socodka ciidamada iyo dhaqaaqa ciidanku ma jirto meesha ay istaagaanna waa baabi'i doonaa insha allahu tacaala waana qorshayaashaanuna waa kolley qorshayaal socda marka waxaan rajaynaynaa inay iska afjarmi doonaan iska hormaadku maanta meeshuu ciidamada ku dhex mariyey qolada argagixisada iyo ciidamada dowladda waa cutubyo ciidanka xoogga ka tirsan iyo ayaga ayaa waxaa isaga hor yimiday waxay jidgooyin yaryar ugu dhigeen meesha la yidhaahdo jilib marko ayagana cagtaa la mariyey wax naf loo hadda ay mataqaanaa ciidamadan hadda ugu babac dhigi karaan meesha ma kuma hayaan marka ayagana dee waa cagtaa la mariyey